بسم الله الرحمن الرحيم كلا wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkan gabi ahaanba waxaynu ku soo qaadanayna dagaalka ka socda gobolka bariga dhexe oo imika maraya toddobaadkii shanaad ayaa laga cabsi qabaa in uu yeesho weji kale meeshii hore dagaalku u ahaa dhanka hawada ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya suurtagalnimada in Mareykanku uu bilaabo duulaan dhanka dhulka ah oo isku dayay inuu ku qabsado jasiiradaha gacanka Bershiya ku yaal ee Iran sida Kharaj iyo sidoo kale jasiiradaha Abu Musa arrintan ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu si cad u sheegay inuu ku tala jiro inuu xoog ku furo marinka Hormuz arrintaasi Iran si adag ayay uga digtay waxaana ay sheegtay qabuuraha Mareykanka inay noqon doonaan jasiiradahaasi haddii uu isku dayo Mareykanku inuu xoog ku qabsado haddaba arrimahani maxay qubarada arrimaha militariga ka tiri macluumaad amurahaasi la xiriira ayaynu barnaamijka ku faahfaahin doonaa maxamed cade oo arrimahan soo ururiyay ayaa qadka ku jira maxamed maxay ku bilaabanaysaa warbixintani dagaalka Iran ayaa hadda u muuqda in uu si ballaaranayo iyadoo dawladda Mareykanku ay tixgelinayso in ay ciidamo lug ah oo kooban ay geliso marka laga gudbo in madaxweynaha Mareykanka oo hore u damaanad qaaday inuu ciidan lagu diraynin haddana sida lagu qoray warsidaha Lafhan waxaa muuqata in dagaalku uu sii ballaaran karo tanna waxay ku soo beegmaysaa iyadoo ciidan military ah oo Mareykanku ku gurayo gobolka bariga dhexe Mareykankan wuxuu isu diyaarinayaa in uu geeyo 2,000 ilaa 3,000 oo ciidamo ah oo ka tirsan qaybta 82 ee ciidanka cirka ee wadanka Mareykanka sidoo kale waxa uu geenayaa 5,000 oo ciidamada Marineska loo yaqaano ee badda waxaa u qorsheysan Mareykanka inuu ciidan kale oo xoojina uu diro oo gaari kara ilaa 10,000 waxaana lagu qiyaasayaa tirada guud ee ciidamada ee laga yaabo in howlgalka Iran oo Mareykanku isticmaalo in ay gaari karaan ilaa 17,000 tanna waxay qayb ka tahay howlgalada ay dhici karto in dagaalka toddobaadyada soo socda in ay qayb ka noqdaan iyadoo aanan dagaal weyn oo furan ayna labada dhinac isla gelin sidii hore looga baqayay haddana waxaad moodaa meel marinta duqeynta iyo ciidamada gaarka ah Iran gudaheeda ayadana inay qorshaha ku jirto waa gartay waayahay maxamed Mareykanka marka qorshihiisa xageeba ku wajahan yahay ma wuxuu ku socdaa meelo gaar ah oo doonaya inuu qabsado mise marinka Hormuz in la furo ayuu qorshihiisa u yahay khiyaaraadka la soo jeeday ayaa waxaa ka mid ah goobaha istiraatiijiga ah oo midda inta badan la xuso waxa weeye jasiiradda la yiraahdo Kharq oo ah goob lafdhabar u ah shidaalka ay Iran dibadda u dhoofiso oo jasiirad ah sidoo kale waxaa la bartilmaameedsanayaa xarumaha taygelinta barnaamijka nuclearka waddanka Iran waxaa kaloo la isku dayayaa in hoos loo dhigo ama la wiiqo dhaqaalaha waddanka Iran iyo awoodda military marka la fiiriyo dagaalka sii dardargalaya maamulka Mareykanka mowqifyadiisa la xiriira colaadan lagu hanjabayo in xal military lagu gaaro iyo iyadoo lagu nuxnuuxsanayo inay suuragal tahay in heshiis la gaari karo ayaa waxa ay muujinaysaa hubaal la'aan inay ka jirto wadiiqada ugu dambeeya ee dagaalku uu ku dhamaan doono iyadoo digniino fara badan ay soo baxayaan in dagaalkaasi uu khatar ugu jiro in uu noqdo dagaal ballaaran oo gobolka bariga dhexe ku baaha waa gartay markii hore dagaalku wuxuu ahaa duqeymo xagga cirka ah laakiin haddii la yiraahdo meel baa la qabsanaya waa ciidamo dhanka dhulka ah Mareykankuna taas ayuu isku diyaarinaya maxay tahay qatarta arrintan la xiriirta ee laga hadlaya wargeyska La Figaro la yiraahdo ee wadanka Faransiiska soo baxa ayaa ku warramay dawladda Mareykanku in ay isku biimeynayso in ay duqeyn xagga cirka ah ay dagaalka si dhaqso ah ugu soo afjarto hase ahaatee Iran ayaa waxaa moodaa inay la qabsatay dagaalka duqeynta xagga cirka ah oo ay wadato xirfad dagaal oo aanan ahayn dagaaladii la aqoon jiray ah waxayna inta badan ku tiirsan tahay gantaallo iyo diyaarado drones ah intaa waxaa dheer cadaadiska dhaqaalaha ee lagu xiray marinka Hormuz ayaa qayb ka ah dagaalka waddanka Iran taasoo horseedaysa inay carqaladayso qaybo ka mid ah shidaalka caalamka dagaalkan ayaa hadda wuxuu muujinayaa in uu saameyn
yar ay yeelatay duqeynta maraykanka xagga cirka uu iiraan uga wado iyadoo iiraan hadda ay awood ballaaran leedahay oo ay dagaalka maraykanka iyo duqeyntiisa uga jawaabayso iyadoo kaashanaysa weeraro xagga daroniska ah iyo iyadoo iska difaacaysa maraykanka ma haysto istiraatiijiyad cad iyo khabiirado dhan arrimahan yaqaanay iyo maamulkiisa ka dhex jiray oo dhan ayaa amarkii laga diiday ama taladii laga diiday haddana waxaa jira isku dhexyaac weyn oo la xiriira sidii loo maarayn lahaa colaadda sida laga soo xiganayo lafagurayaasha wargeyska faransiiska soo baxay La Figaro. waa gartay arrintan haddaynu ku soconno go'aamada istiraatiijiyad la'aanta waxaa leeyahay madaxweynaha maraykanka tiisa ayuu ku socdaa laakiin talooyinka la soo jeedinaya uu ka biyadiidsan yahay balanta dhinacaas inoo faahfaahay maxamed. sida warbixinta lagu xusay madaxweynaha maraykanka ayaa isku haleynaya go'aamada shakhsiyad ee asaga gaaray oo ku salaysan go'aamo degdeg ah oo aan ka fiirsasho lahayn iyo bayaano aan laga fiirsan oo ujeedinayo waxaasoo dhan su-aalo badan ayaa ka dhashay in ay waxtar u leeyihiin maareynta dagaal muddo dheer maraykanku uu iiraan la galo gaar ahaan dowladda maraykanka ayaa hadda sumcaddeeda ay aada hoos ugu dhacday fariinta ay colaadda diraysana waxa weeye inay colaaddani ay noqonayso mid dheer marka la fiiriyo arrimaha hadda socda maamulka maraykanka ayaa waxaa soo food saaray khiyaaraad aad u adag midka hoosta laga xariiqaya ayaa waxay tahay inay suuragal tahay in faragelin xagga militariga oo dhulka ah inuu diro khiyaarkaasna khatartiisa ayaa aada u weyn waxayna horseedi kartaa dagaalka inuu ballaarto dagaalkana u noqdo mid aad u mariqsan oo khasaaro badan ka dhalan karo iyadoo hadda ay jiraan fursado xal degdega lagu gaari karo ana ay yar tahay in heshiis la gaari karana ay u muuqato in ayna kala caddayn waxaana muuqata maraykanka dhinaciisa inuu wada hadal rabi lahaa laakiin iiraan ilaa ay haddeertaan waxaad moodaa inay ka goos adeegayso maraykanka waxyaabaha uu yeerinayo. waa gartay arrintan markaa ma wuxuu noqon doonaa dagaalkan dagaal ku kooban Israa'iil iyo Maraykanka oo dhinaca iyo Iiraan mise waxaa la filan karaa dagaalkan inuu xarga goosto dhinacyo kale ay ku lug yeeshaan. dagaalkan lugta ah ayaa go'aan laga gaarayaa ciidamada ma noqon doonaan kuwa sida la qorsheeyey gobolka waqti ku filan soo gaaray saacadii dagaalka ayaa isbedel xoog la ka socdaa ciidamo badda in lagu soo dejiyo ayaa aada xasaasi u ah duqeynta xagga cirka ah ee maraykanku awoodda ku sheeganayo iyo maraakiib inay kusoo dhowaadaan xeebaha waddanka iiraan inaynan waqti badan haysan gantaallo lagu burburinayo maraakiibtaas in lala eegto ayaa baqdin ah ayaa jirta iyadoo dagaalka uu socdo ayaa khatar weyn oo waxaa jirta maraykanka in ay fajiciso ku timaado oo waxyaaba uuna filayn inuu kala kulmo iiraan in markab la duqeeyo ama diyaarad la soo rido ama duuriye laga qabto iyadoo dagaalka uu hadda u eg yahay dhanka madaxweynaha maraykanka marka laga fiiriyo cayaaraha lagu cayaaro kombiyuutarada oo madadaalada laga dhigto hase ahaatee dagaal markii la galo sidiisaba sida lagu joojiyey waa adag tahay madaxweynaha maraykankana hadda waxaad moodaa inuu xaqiiqadaas dhadhamiyey. waa gartay waaya maxamed haddaynu intaa kaga gudubna warbixinadan wargeysadu ay qorayaan maxay marka dagaalkan qubrada ku macnaysay in maraykanka ilaa 17,000 askari waxba kama tari karaan walow laakiin la ogyahay 50,000 askari inay maraykanka ka joogaan meelahaasi marka muxuu isku halaynayaa maraykanku ma iiraan ayaan awooddaas lahayn kula dagaalami karto ciidamo ilaa 70,000 mise qorshayaal kale miyaa jira oo ciidamo carbeed iyo wadamo kale in dagaalka ka qayb qaataan. wargeys kale oo la yiraahdo la inver opus ayaa asna waxa uu ka hadlayaa bayaanaad ka soo baxaya xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka maraykanka Marco Rubio ayaa wuxuu meesha ka saaray in ciidan lug ah la dirayo wuxuuna ku nuxnuxsaday dowladda maraykanka hadafyadii ay dagaalka lahayd ayaa la gaari karaa iyadoo aanan ciidan luga loo dirin waddanka iiraan hase ahaatee iiraan ayaa u muuqata inay dhab ka tahay in ay khatar walba oo maraykanka xaggiisa uga timaada ay jilb u dhigi doonto bayaanada qaar laga soo xiganayo
wakaaladaha wararka Iiraan gaar ahaan IRNA oo wakaalada wararka rasmiga ah ayaa afhayeenka baarlamaanka waddanka Iiraan Maxamed Baghir Ghalibaf ayaa waxa uu ku eedeynaya dowladda Mareykanka in si qarsoodi ah ay u qorsheynayso dagaal lugta ah halka ay adduun weynaha u sheegayso in ay dadaal diblomaasiyadeed wado oo dagaalka lagu soo afjarayo saatee afhayeenka baarlamaanka waddanka Iiraan ayaa waxa uu leeyahay ciidankeena waxa ay sugayaan askarta Mareykanka in ay dhulka Iiraan soo gaaraan si aan isaga difaacno Jerusalem ilaa waana aan u dhigno Mareykanka iyo xulafadiisa oo aynan weligood arag ayuu digniin ku bixinayaa Ghalibaf oo ah afhayeenka baarlamaanka waddanka Iiraan ayaa ugu baaqaya shacabka waddanka Iiraan in ay midoobaan wuxuuna ku nuuxnuuxsaday waddankiisa in uu ku jiro dagaal weyn oo dagaal caalami ah isla markaasna lagu jiro marxalad midii ugu khatar badnayd ah wuxuuna intaas ku daray waxaan rabnaa inaan xaqiiqsano in aan cashar lama ilaawaana iyo ciqaab culus dowladda Mareykanka aan qorta u surno oo aan ka dhigno in ay ka shalaydo in ay Iiraan Mareykanku inuu Iiraan soo weeraray inuu ka shalaayo waxaana si xoog leh u adkeynaynaa ama u xaqiijinaynaa in aan ilaashanayno xuquuqdeena asaasiga ah oo ah waddankeena inaan difaacno haddii aan u wareego qaybta labaad su-aashaada Mareykanku ku fulan yahay ciidankan uu soo diray in uu Mareykanka Iiraan uu ku qasbo ama uu deegaano muhiim ka qabsado ama jasiiradan uu ku taamayo iyo jasiiradaha kale ee ku yaala meelaha ku dhow waddanka Imaaraadka ma qabsan karaa su-aashaasi waa su-aal muhiima Iiraan iyo waddanka Imaaraadka Carabta muddo dheer ayay isku haysteen jasiiradahan saddexda ah Mareykanka hadda uu ku hanjabayo inuu qabsanayo dhowr goor ayay isdacweeyeen waddanka Imaaraadka wuxuu xorriyadiisa qaaday 70-meeyadii Iiraanna marka laga gudbo jasiiradahaasi xataa Imaaraadka ayaa waxaa degan shaaliyado muwaadiniin ah oo u dhashay waddanka Iiraan Mareykanka dagaalkan uu diyaarinayo haddii uu qabsado khabiirada dhan waxay isku raacsan yihiin gantaalada Iiraan ee gaaraya Israa'iil iyo wadamada kale ee gacanka uma daahayaan in lagu burburiyo Mareykanka haddii uu soo dego jasiiradan xasaasiga ah kharg la yiraahdo boqolkiiba 80 shidaalka Iiraan uu maro iyo haddii uu jasiiradahan saddexda ah ee Imaaraadka ay ku haysato Iiraan uu soo dego umana muuqato Mareykanka in uu qasbi karayo oo 17,000 iyo 100,000 oo ciidan ah in uu wax uga qaadi karo Ciraaq dagaalkiisa ayuu 200 oo ciidan geeyay 200 oo ciidanka ah waa maareen waayeen dagaalkii Ciraaq oo 6 sanadood qaatay dagaalkii uu Afghanistan ku tagay 20 sanadood socday Mareykanka ciidamo badan ayuu geeyay ayagana waa maareen waayeen iyo ciidan kale oo caalami oo caawinayay Ciraaqna waa la caawinayay hadda Mareykanka cidda kaliya oo caawinaysa waxay tahay Israa'iil waxaana muuqata in dagaal haddii uu dhaco khabiirada dhan isku raacsan yihiin in dagaalkaasi khasaaro badan uu Mareykanka soo gaarayo saameyn weyn uu ku yeelanayo dhaqaalaha caalamka la iskuna riiqanayo ugu dambeyntiina ay noqonayso waddanka Iiraan oo xeebihiisa ay buuro ku teedsan yihiin dhinac walbana ay buuro ka xigaan in la qabsadana ay adag tahay ciidan aad u fara badanna leh Mareykanka waxa ay noqonayaa in uu dagaal xoog leh galo dagaalkaasna uma diyaarsana Mareykanka dagaalka uu jeclaan lahaa waxa weeye sida ay khabiirada hadalku u sheegaan 30 sano la soo dhaafan uu adeegsanayay shock and awe waxa la yiraahdo sas iyo burburin samee ciidamada cirka duqeyn joogta 300 oo duulimaad ilaa iyo saacada 24 saacadood lagu wado la burburiyo mas'uuliyiinta dawladda la kala daadiyo xarumaha muhiimka ee militariga waddanka qalalaase iyo inuu shaqeyn waayo laga dhigo laakiin Iiraan ciidankeeda sidoo uu qaabaysan yahay iyo weeraradii la qaaday mas'uuliyiintii
iiraan qaar waa la dilay qaar kalena weli waa shaqaynayaan laakiin maraykanka uma suuroobin wixii uu ku taamayey inay meel marto dagaalkana khabiiradu waxay sheegayaan in uu keeni doono ugu dambeyntii in maraykanka uunan hadafyadii uu lahaa iyo dagaalka siduu uga bixi lahaa midnaba inaynu u oolin madaxweynaha maraykankana waxaa la qiyaasayaa marka la fiiriyo xaaladiisa caafimaadka iyo marka la fiiriyo shaqada see u culus tahay iyo mudaharaadyada hadda ku socda in walwal weyn ay keenayso haddii askar badan oo maraykana oo santuuqi ku jira la keeno in ay saldanadiisa khatar gelinayso waxaana muuqata iiraan wacadkii ay martay inay ka dhabeynayso oo ay diiday maraykanka iyo halkudhigidiisa bal cagsigeeda waxyaabahay dalbanayso waxaa laleeyahay maraykanku ma laqi karo laakiin xaqiiqada meesha jirta ayaa waxay tahay iiraan uma muuqato inay isdhiibayso waa tahay maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashuna way mahadsan yihiin inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka daawada si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan uga xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha allah inta ka horeysa